dhoorayaasheedu waxay u baahan yihiin dhaqan celis. dadka Amerika jooga dhan ama kaniisada caawisay caawiye ama union caawi been yaa la isku sheegin familkayga hooyaday aabahay walaalahay eedooyinkayga inta famil ahaan dhan aday waa wada qaadi lahaa Mareykan iyo waxaan gelinaa Canada. dagaalka Sharma Boy iyo Nimcaan Hilaac ayaa maalimahan dambe baraha bulshada qabsaday. sida ogtihiin Sharma Boy wuxuu ka dagaaday dalka Mareykanka. dad badan ayaa ka shakiyay Sharma Boy in kaniisad geysay ayna familigiisa geynin Mareykanka. hase ahaatee fanaaniin badan ayaa ka xumaadeen Nimcaan Hilaac uu ka mid yahay. Soomaalisan u nahno wax iskuma qorno. qofka hadduu horumar sameeyo mise qof nolol hore ku jira uu isbedelay, qof ku ogolaanayo mise kugu farxayo ma leh. qofa horumar sameeyay, qofa wax sameystay laguma farxayo. hadal dur ayaa la wadayaa. haddana Nimcaan Hilaac page-ka Facebook-kiisa soo fadhiistay wuxuuna dhahay dadka qaar reer baadiyanimada waa in laga dhaqaa. yuu ku waday yaa baxay haddaynan ahayn Sharma Boy. Nimcaan Hilaac markiisu hore wuxuu ekaa ragga aamusan oo dadka afaarahooda faraha la soo gelin, laakiin maalimahan dambe waxaa la arkay inuu ka xanuunsaday taganaanshaha Sharma Boy. fanaaniin badan ayaa cabsadeen sababta way ogyihiin hadduu xagga u guuro shaqooyinkiisa xagga u wareejisto in xaflad walba uu ka qabsanayo. Sharma Boy waa fanaanka keliya ajaanibta xitaa daawadaan. xanuunkan ay fanaaniinta la wada xanuunsadeen si ay ayagu wada geynin wixii hadda sheegayaan sida ay u shaqaysteen meeshii maanta joogaan. Sharma Boy hadduu kaniisad ku tagay iyo hadday hay'ad waday dalku uu tagay, qof walbana wuxuu u dadaalaya waa familigiisa. waxaa la yaabanahay waxaana wax iskugu qorin. qofka hadduu sameeyo horumar soomaho in lagu daydo. qof walba intuu meel soo fadhiisto ayuu ka xumaanaya. midda kale isma qarinayo. qofka markuu caqli leeyahay hataa hadduu ka xum yahay qof wuu iska aamusaa. laakiin intuu meel soo fadhiisto hadal dur ma wado. hadda yuu ku waday Facebook-giisii page video ugu dambe uu soo dhigay yuu hadal durka ku waday. qof walba commentiga caqli leh wuu ogaa qofka ku waday Sharma Boy. waa ogtihiin maanta Sharma Boy wuxuu Soomaaliya uga soo tagay, wuxuu dalkiisa hooyo uga soo tagay hanjabaad iyo noloshiisa qarqar gasho. maanta markuu tagay meeluu ku nabad ku helayo, meeluu shaqo ka helayo, meeluu horumar ku sameynayo, meeluu lacag ka helayo ayaa fanaaniintii kale walaalahays intay soo dhaweyn lahaayeen ayaa qof walba caloosha ka cagaartay, qof walba caloosha xanuunaysa. niman waaweyn oo maanta aabo u noqon karaan oo fanka weligood ku jireen ayaa ka xun. wax kalena uma xuma. qof walbana uu leeyahay waxay ku xum yihiin. Sharma Boy hadduu tago xaflad walbo asaga la wareegayo, aroos walbo asaga ka soo muuqanaya. shaqo la'aantaas ayay ka cabsanayaan. qofka nooci walboo geeyo siduu ku tago ayaga maxaa shaqo uga dhigay. fanaaniinta ajaanibta horta fanka waa wax xaraam. fanka waa wax xaraam. ayagoo saas u ogyihiin fanaaniinteena Soomaaliyeed ayuu ogyihiin dambigaas ay galayaan, haddana meel ma gaaraan. dambi waa sameynaysaa labada xanuun maxaa waaye. waa arkaysaa markay xanuustaan uu xanuunka imaado lacag iyo aruuriya waaye. kuwan ajaanibta ayagoo dambiga galayaan malaayiin ay ka hagaajistaan. sababta ma aha saboodka ay ka helayaan dadkooda, bal
ayagaa walaalo iska dhigteen oo gacan isqabsadaan oo wax sameynayaan oo horumar isla sameynayaan. Laakiin fanaaniinteena qofka wax yar wala hadda Sharma Boy dalka Mareykanka aadaya ma wax weyn ah. Waxa noloshiisa iyo family-giisa inuu ka caawiyo ma ogi maxaa weyn uu helayo. Giddigood waxaa ku dhacay iimaan darro. Way wada gaajoodeen, way wada xanuusteen. Waxay aaminsan yihiin hadduu tago xafladooyinka dhan ay aadi jireen inay laga kansalo. Waa aragtay si loo soo dhaweeyay. Yaraan iyo weynaan ayaa u soo baxay. Rag iyo dumar ayaa u soo baxay. Qof walba ku farxay meeshii lagu hanjabayo, meeshii noloshiisa dhan uu ka cabsaday inuu ku baaba'o. Laga soo qaaday waddan amni leh oo shaqaysan karto oo xorriye ah ayuu tagay. Maanta inaa walaalkaa soo dhawaan lahayd isagoo cabsanayo aad ogtihiin inuu noloshiisa la soo cararo, naftiisa la soo cararay ayaa intaad Facebook soo istaagtiin aad caytamaysiin. Ma ogi miyaa dhalinyaro badan ayaanay dawdaan. Dhalinyaro badan ayaanay dawdaan oo arkayaan waxaad sameynaysiin. Ani umaanan salim malaynaynin fanaanka Nimcaan Hilaac inuu nooca yahay. Waxaan u haystay nin degan oo dadka afaaraha soo gelin. Hadda dad badan ayaa la yaaban. Asagana isma arki inuu khalad sheegayo. Wuxuu sameynaya inay khalad tahay isma oga. Wiil walaalkaa intaad Facebook soo istaagto intaad si sharaf u soo dhaweyn lahayd mise haddaad soo dhaweyn karin iska aamusi lahayd ayaa page-kaada intaasoo kumanaan qof ku follow gareynayso soo fadhiisatay ayaa caynaysaa wiil walaalkaaga ah. Maxaa gaajada kugu dhacday? Maxaa waayay wiilkan wuxuu ka xirayo arsaaqadu ka xirayo maxaa waaye? Subxaana Malikil Quddus. Wixii geeyo kaniisada ha geyso dadkan kale ha geeyaan. Taas mid ku taalo ma aha. Taas mid shaqadaada ma aha. Wiilkan wuu niga wada yar yahay. Maanta waa wada dhali kartiin. Maxaa waaye wuxuu ka qaadaya hadduu dadaalay aragteen maanta heesihiisa afarta geeso dunida laga dhageystaa. Maxaa waaye adiga waxa ku guwayo adiga iyo kuwa xanuunsan waxa u baahan tihiin oo degdeg u baahan tihiin caafimaad. Hal iska dhaafo xasidnimada la sameynayo. Qofka aad arkayso horumar sameynayo waa la fiiriyaa oo waa lagu daydaa.